واتهاي داوديال waxaan xaggan taagan gaadan cali mire oo kamid ah dadkii soo badbaadiyay odaygii maanta la sheegay in toga garowe uu biyaha kula tagay gaadan baa soo dhaweynaya suuna warbiyo gaadan soo dhawow bal odaygaas ay u la kulanteen sees u badbaadiseen bismillaahir rahmaanir rahiim odaygu wuxuu ku go'doonsanaa toga garowe aaga isbitaalka weyn ee garowe waxa ku dhacday biyihii isagoo toga maraya biyo ku soo dhaceen meel rakaya oo toga dhexdiisa oo ciidan uu fariistay muddo badan buu fadhiyay xal badan baan u galay siyaabo badan baan u biskaranay inaanu ninka soo saaro adigu markii dambe alxamdulillaah rabbil caalamiin waan guuleysanay waana soo saaray soo badbaadinay insha Allah yani caawiyay seese bal qaabka noo soo caawinadu way badnayd shacabku way dadaalayeen dawladdu way dadaalaysay booliiska way joogeen insha Allah gawaarida ambalaastii biyo dibsiiskiisa gawaari way shisho fara badan way yimaadeen oo badbaado fara badan baa la galay laakiin markii dambe waxaan isku daynay inaan biyaha isku dhex tuuro harka qaadano ama soo saaro soona caawino banaanka kaano biyo yar bay ahaayeen bal biyaha laftigooda biyo aad u badan bay ahaayeen aad u badan hatta markii dambe aan soo baxnay markii aan ka soo dhamaanay toga aad u soo batay biyo way soo dhaceen annaga nafteedu waa khatar ku galay dadka inta badan toga xiliyada roobka oo u dhow halisaa badan ay lagala kulmi karo maxaad baaq ahaan ugu dareysaan oo arrimahan ka mid ah waxaan baaq ahaan ugu dareynaa dawladda gaar ahaan waxaan u dareynaa dawladda waxaan leenahay in dad loo tababaro in hadduu ilaahay koreen qalab loo keeno in laga taxadiro aad iyo aad in wacyigelin badan la sameeyo aad iyo aad baan taa dawladda u faraynaa shacabkana waxaan leenahay inay ka digtoonaadaan biyuhu masuubooyinka ka mid yihiin inay marka difaac badan ka galaan oo dhalinyarada carruurtii laga celiyo dadka safarada ay loo soo sheego iyo haddii ay soo socdaan isgaarsiinta lagu wariyo la yiraahdo halkaas biyuhu soo marayaan ama ay soo marayaan si looga dadaalo taxadir loo sameeyo daawadayaal gaadan iyo tiimkiisa waxay naftooda halis u geliyeen inay badbaadiyaan odayga da'diisa uu jiro 60 ka lagu sheegay waxaa lagu tilmaami karaa haliyay maadaama ay naftooda u geliyeen si ay u badbaadi lahaayeen qaar ka mid ah ama odaygaasi biyaha galay aad baa mahadsantahay